ده الماء waxay ayseeysay qoldo saan markay aanayso ay cijirta may maleysaa waa laba gabdhood oo caan ka ah barta TikTok waxa ayna ku dagaalamayaan goob fagaare ah iyada oo gabadha lagu magacaabo Najma Khaliif Mrs Wall ay markaasi duulaanka soo qaadayso ayna aadayso guriga Mrs Wall maxaa dhici doona Mrs Wall ayaa markaasi dagaal aan kala har lahayn ku qaadayso guriga canabka weyn oo ku yaala magaalada Nairobi Mrs Wall ayaa hal arin darteed uga soo tagtay Muqdisho waana inay la dagaalanto canabka weyn haddaba daawada sheekadan oo ah mid xiiso badan oo aad qaybta dambe ku daawan doontid muuqaalka waxaan si naxariis la kaaga codsanayaa maantay inaad hal subscribe isiisid gambaleelkana furatid haddii aad horay ii siisay ku mahadsanida haddii aad hadda isiisayna garabkaaga Allah galo ismahuri karohil bawada dhashiyahay quraanu nahay ismahuri karohil bawada dhashiyahay quraanu nahay ha hilmaamin inaad muuqaalkan la igaraysid lana wadaagtid saaxiibadaada ku mahadsanid saaxiibadii TikTok sidoo kalena baray Soomaalida iyo gabdhaha Soomaaliyeed jaaska qoobka ciyaarka iyo niikada TikTok lagu dhex joogo waa canabka weyn iyo Mrs Wall marakan waxa ka dhex urtay dagaal aan caadi ahayn labada dhinac waxba iskuma reebanayaan oo mid walba hubka ay isticmaali karto ayay isticmaali kartaa gabdhahan waxay ku soo kordhiyeen TikTok dagaal live loo daawanayo oo bulshada Soomaaliyeed daawanayso waxyaabaha la yaab kale ee meeshan ka dhacaya ayaa ah in Soomaali gaarayso 30,000 oo qof ay leefka Queen Canab ay si toos ah u daawanayaan bal maxaa macna tiray Soomaalidii waa micnaha TikTok iyo sidoo kale aaladda cusub ee tiknoolajiyada muxuu qiimo soo kordhinayaa gabdho dagaalamayo oo la fiirsado waa waxba balse adduunku waa sidan maantay oo tiknoolajiyada cusub ayay la jaan qaadayaan shacabku haddaba gabdhahan ayaa si live isku dagaalaya waxyaalaha la yaab kale ee goobtan ka dhacay ayaa ah in live-kan uu kor u dhaafay daqiiqadiiba 50,000 oo qof madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Farmaajo xataa intaas oo qof ma daawato marka uu khudbad qarannimada Soomaaliya wax ku dhimi karta ama wax ka siyaadin karta uu ka hadlayo waa yaab haddaba maxaa dhici doona Mrs Wall waxa ay soo qaadanaysaa mooto waxayna si toos u imaanaysaa guriga Queen Canab iyadoo Queen Canabna ayaan isdiyaarin ayay halkaasi dagaal ku qaadaysaa waxa ayna Queen Canab ka dagaalamaysaa daaqada guriga balse marka dambe Queen Canab way soo baxaysaa waxa uu dagaalku u dhexmarayaa si aan caadi ahayn gabdhahan ayaa markaasi si live isku duubay waxaana dagaalkoodu u gaaray meel walba iyadoo 24 saac ee ugu dambeeyay lagu hayay baraha bulshada markaas ay ku maadsanayeen boqolaal Soomaali ah oo kala joogta daafaha kala duwan ee caalamka haddaba daawada muuqaalka waxba yaana warka ugu daaline gabadha lagu magacaabo Mrs Wall waxa ay safar ku soo kala bixisay deegaanada Puntland ilaa iyo Somaliland iyadoo markii dambena tagtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana markaasi ay sheegtay inay u bixi doonto Muqdisho sidoo kalena halkaas ay u gaari doonto Queen Canab si ay ula soo dagaasho gabadhan ayaa intii ay ku sugnayd Muqdisho waxa ay la kulantay siyaasiyiin caan ah oo uu ka mid yahay wasiir Dube balse macnaha kulankooda lama qeexin iyo wixii uu ku salaysnaa ugu dambeyn Mrs Wall waxay aaday Nairobi halkaas oo ay si xun ula dagaalantay saaxiibadeedii ay TikTok iskula soo jaanqaaneed ee Soomaalida ay bareen markaasi qaabka niikada iyo qoobka ciyaarka labadan gabdhood ayaa ku suntan inay yihiin gabdhihii TikTok keenay inay gabdhaha Soomaaliyeed maantay TikTok muuqaalo fadeexa isaga duubaan waa labada gabdhood ee sababtu ahaa sidoo kalena gabdhaha Soomaaliyeed baray in jirka la qaawiyo sidoo kalena falow ay Soomaalidu ku saarayso marka aad kubkaaga qaawisid hadda waa iyagii oo fooda istiray waa saaxiibadii shalay oo maanta cadow isku ah si taranna isku tabinaya warkooda meel walbana laga dhageysanayo ceebtooda sidoo kalena lagu fadeexadeysanayo waxba yaanan warku ku daalinay dagaalku sida tan ayuu ku bilowday sida tan ayuuna ku soo dhamaaday إلى ما أقول لك. فليك نجري سانا ما بقى
iska baxa adinka كلية صوصي ilmo waxay aysay weysay u qaldowsaan markay caanayso ay ciijirta may malaysaa akhlaaq gabar xirsaa ku taacawti hadda waa soo socdaa meesha ay gilleed raadsaday meesha gilleed meesha gilleed raadsaday soo niro soo socdaa naagtaas laafkee soo geliyo taariikhda ku dhawaa la yaab lahaa fuleeda xunta la soo gashay bartamaha hooy akhlaaq isku akhlaaq milida neerona maanta ku ma badnaay inta taas meel aan seera warba waxa Tiri, silkaan dareeraa isku soo qalaji kaniini fashinka cundhilo oo sanka jajaban meesha uu ku arko aku toogana balan waaya ku dhahay yaa imalaysa adiga wiliga waxa suma balan naagna madiid waxa taay malahan UK xunta sharmutada taawo sirta ka haane sirkasta ka haane banaanka soo dhiga UK isku imaada sirta ka haane sirkasta ka haane banaanka soo dhiga UK عاوة لقارب